السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحad baan idiin rajaynayaa saddex lama fuulo oo dusha loogama baxo. Rakuub aan raris aqoon. Rakuub aan raris aqoon lama fuulo. Rakuubku waa gaadiidka la kaxaysto ee markaas nool sida awrta, fardaha, kuwaas aan hayin noqon, aan si fiican loo tababarin, lama fuulo dee wuu kula dhacaya ama wuu kula buubaya ama wuu kula cartamaya. Markaa lama fuulo. Haweeney aan rag aqoonna lama fuulo. Lama guursado haweeney aan rag aqoon oo iyadana loola jeedo haweeneyda aan dhaqashada ninka garanaynin, iyaduna way buubaysaa oo way burburinaysaa meel kasta, gurigaana ugu horeeyo meesha ugu horeysay burburinayso. Marka haweeneydu ragga inay barato oo haweeney rag yaqaana ay tahay ayaa la guursadaa. Rako aanad adigu rarina laguma seexdo oo lama fuulo. Waxaa jira ragada waa sariiro xilliyadeennii dhaqanadeennii hore la samaysan jiray oo dadku ay ku seexan jireen. Markaa qoryaa ku taagan. Haddii aad iska seexato rako qof kale sameeyey, qoryihii ku taagnaa ma hubtid, qofkii waad kala miisaan culustiin, waa laga yaabaa inaad ka miisaan culustay, qoryaha ku taagan inay kaa jilicsayin ma ogid, way kula dhacaysaa ama way kula dheeliyaysaa. Ama waxaaba laga yaabaa isku hurdayda inaad ahayn oo adigu aad ka hurto xuntaad kalgalanayso, rakaduna dhulka aad bay uga kacsantaho way dheer tahay. Saddexdaas lama fuulo. Sababta loo diidayaana waxa weeyaan inaad ku simbirrixato oo dhulka aad ku dhacdo oo khasaare nafeed iyo mid nololeedba ay ku soo gaadho. Waxa kaloo loo diidayaa in waxaanad hubin aad madaxa la gasho oo hubsiimo halbaa la siistaa ayay bulshadeenu tiraahdaa. Waxa kale oo loo diidayaa in ay hadhowto kugu timaado waxaad ka tiiraanyooto ama aad ka qoomamayso ama aad farta dhexda ka qaniinto ama aad tiraahdo waxaas maxaan u sameeyey ma ka fiirsado. Saddexduba waxay kaaga baahan yihiin hubsiimo. Saddexduba waxay kaaga baahan yihiin taxaddar iyo fiirsasho. Saddexduba waa saddexaad ku aaminayso noloshaadii iyo naftaadii. Weliba haweenka oo kuwa runtii ugu muhiimsana xilliyada aad xulashadooda ku jirto aad uga fiirso. Sababtoo ah mustaqbalkaaga ayay jaangoynaysaa, noloshaada ayay jaangoynaysaa, waxa ay jaangoynaysaa farxaddaada, waxa ay jaangoynaysaa guud ahaanba qaab dhismeedka noloshaada. Intaas ayaynu ku soo ururinaynaa ee la sii wadaaga bulshadana kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.